waa dhab waa dhag oo dhammaystiran dheeman TV. Puntland waxaa la aasaasay 1 Agoosto sanadkii 1998 waxayna sanad walba u dabaaldegtaa maanta oo kale xuska sanad guurada Asaaskii Puntland. 22 sano ay Puntland soo jiitamaysay waxa soo maray 5 madaxweyne oo kala duwan. madaxweynihii ugu horeeyana wuxuu noqonayaa Allah u naxariistay Korneel Cabdullaahi Yuusuf Axmed, halka madaxweynihii labaad ee Puntland soo maray uu noqonayo Generaal Maxamuud Muuse Xirsi Generaal Cadde Maxamuud Muuse Xirsi Boqor Generaal Cadde. madaxweynihii saddexaadna wuxuu noqonayaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole. madaxweynihii afraad ee Puntland soo maray wuxuu noqonayaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. madaxweynihii shanaad ee Puntland soo marayna waa madaxweynaha iminka xilka haye waa Siciid Cabdilaahi Deni. 22 sano ee Puntland soo dhisnayd waxa ay gaartay horumar kala duwan. horumaradaas ay ka mid noqon karaan dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka wax soo saarka, dhanka kobcinta dhaqaalaha, dhanka kaabayaasha ama horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Puntland waa maamulka ugu fac weyn dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, waana tan ugu mugta weyn. Puntland waxay noqotay hooyo u baxsato dhammaan ummadda Soomaaliyeed kadib markuu dhacay burburkii dowladdii dhexe ee Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ama dowladdii kacaanka ahayd ama kala gitariska ahayd. dhamaysow calankayago adigu dhinac uga egyahay astaanteena ku dhigan amni buuxayo iniciyo hanaa halka lagu bartay goroway bulshada jirkiyo goroway nabadow budiga barta laga helaa